maanta waxaa xilka laga qaaday ku aadan dhinaca guddigii arrimaha dibadda ee ugu jirtay aqalka Congress-ka Ilhaan Cumar oo ah xildhibaanada ka tirsan xildhibaanada ee dalka Mareykanka qadka telefoonka waxa igula jira cilmi waare oo ku sugan gobolka Indiana dalka Mareykanka cilmi waare ku soo Sona Production waa dhawahay daaq cilmiyow maanta waxa la qaaday xilkii Ilhaan Cumar ay ka haysay guddiga arrimaha dibadda ee Congress-ka arintaas sidee u dhacday waa mahadsantahay deeqa waxaan ognahay horta doorashooyinkii xilliga dhexe ee November 8 ee sanadkii dhamaaday dhacay in aqlabiyadda aqalka hoose ay la wareegeen xisbiga Republicanka oo 222 xubnood ay heleen oo 9 xubnood oo kursi oo dheeraad ay heleen halka dimuqraadiyaduna 213 ay heleen sidaa darteed 435 sidaas ayay ku noqonaysaa marka waxay la wareegeen aqlabiyadda waxay awood u leeyihiin in gudiyada iyagu ay soo xulaan gudoomiyaashooda ay sameeyaan qofkii ay rabaan xilka qaadis ay ku sameyn karaan maadaama aqlabiyadda iyagu haystaan marka waxaa jirtay xilligii xisbiga dimuqraadiga 2 sano la soo dhaafay ay hayeen aqlabiyadda aqalka hoose in 2 xubnood oo ah Marjorie Taylor Greene oo laga soo doorto Georgia ay ka saareen gudiyada ay ku jirtay kadib markii kooxda been abuurka baraha bulshada ku faafisay QAnon la yiraahdo ay warar been abuur oo kuweeda share garaysay iyo waliba Paul Gosar oo isaguna soo saaray sawir animation oo dhaqdhaqaaqaya isagoo Alexandria Ocasio-Cortez oo ka tirsan xisbiga dimuqraadiga New York laga soo doorto Steve Cortes isla markaana u hanjabaya madaxweynka haya ee Joe Biden marka dimuqraadiyiinta Republicanku iyagoo arintaasi ka duulaya ay waxay yiraahdeen haddii annaguna hoggaanka ama aqlabiyadda aqalka hoose aan la wareegno qaar kamida xubnaha ayaan ka saari doonaa gudiyada ay ku jiraan gudoomiyaha hadda la doortay afayeenka la doortay Kevin McCarthy toddobaadkii la soo dhaafay waxa uu gudiyadii ay ku jireen uu ka saaray gaar ahaan guddiga sirdoonka Adam Schiff iyo Eric Swalwell oo labaduba laga soo doorto California marka isaga ayaa awood u lahaa in labadaas xubnood iyadoo aan cod loo qaadin uu guddiga ka saaro sirdoonka oo ay ku jireen laakiin Ilhaan Cumar arinteedu waa ay ka bedeleen maadaama guddigeedu yahay guddi awood badan waxaa loo baahnaa in aqalka uu cod u qaado sidaa darteed ayaa waxaa jiray xubno ka tirsan xisbiga Republicanka oo iyagu diidanaaba in Ilhaan xilka laga qaado laakiin ugu dambeyn Kevin McCarthy afayeenka aqalka hoose waxa uu ku qanciyay in ay u codeeyaan xilka qaadista guddiga ay ku jirtay arrimaha dibadda in Ilhaan Cumar laga qaado maanta ayuuna codkii dhacay 218 xubnood ayaa u codeysay oo xilka ka qaaday 211 waa ay diideen hal xubin oo Republican oo Ohio laga soo doorto oo David Jones la yiraahdo ayaa ka aamusay oona diidin isla markaana aan taageerin oo president u codeeyay guddiga waxa ku jira dad badan oo ka tirsan dimuqraadiga maxay tahay sababta markaasi ay u ilbaadsadeen ama ay markaas u weerarayaan Ilhaan Cumar inay ka saaraan guddigan sababtu waxay tahay hadallo horay baraheeda Twitter-ka ay ugu soo qortay oo ay ku muujinaysay arrimaha Israa'iil oo ay ku tilmaameen in ay nacayb dawladda Israa'iil u qabto arrintaasi cunsurinimo ay tahay iyo sidoo kale hadal hore ay uga sheegtay weerarkii Twin Towers-ka lagu qaaday September 12 sanadkii 2001 oo Ilhaan ay sheegtay arrintaasi inaysan badhicin oo muslimiinta lagu bartilmaameysanayo sida hadalka u dhigeen marka ay u muuqataa in argoosi ay tahay maadaama Kevin McCarthy waxyaabaha uu ku ololeynayay intii afayeenka uusan noqon ahayd in xilka qaadis oo gudiyada ay ku jiraan oo ka saari doono 3 xubnood oo sheegay haddana sida muuqata 3 xubnood oo sheegay Adam Schiff iyo Eric Swalwell oo ku jiray guddiga sirdoonka iyo Ilhaan Cumar oo guddiga arrimaha dibadda ku jiray 3diiba in laga qaaday gudiyadii ay ku jireen oo aysan hadda kamid ahayn sidaan wada ognahay aqalkan maadaama hadda ay hogaaminayaan xisbiga Republicanka ma la isdhihi karaa way ku guuleysan karaan hadafkoodii hore iyo ballanqaadyadooda u sameeyeen ahaa in xisbiga ay ka sifayn doonaan dimuqraadiga haddii ay ku guuleystaan aqalkan sida muuqataba durbaba waa ay sameeyeenba xisbiga markastaba aqlabiyadda aqalka hoose iska leh ayaa gudiyada awoodda badan la wareegaya iyaga ayaa gudiyada dhisaya gudoomiyaashooda magacaabaya guddi hoosaadada sameynaya marka inta badan xubnihii awood xisbiga dimuqraadiga 3 xubnood waxay kamid ahaayeen 3 xubnood ee ugu awooda badan xisbiga dimuqraadiga marka la eego gudiyadaasi 3dooduna shir jaraa'id ay qabteen dhowr maalmood ka hor oo ay leeyihiin arrintan waa bartilmaameedsi oo la doonayo in lagu bartilmaameedsado xubnaha ugu muhiimsan xisbiga dimuqraadiga marka waa ay ka dhabeynayaan sida muuqata maadaama hadda 3 xubnood ay sheegeen inay ka qaadayaan laakiin Kevin McCarthy oo arrintan wax laga weydiiyay waxa uu yiri
arrintan ma ahan inaan anigu ilhaan ku bartilmaameedsanayo guddiyadii kale way ka mid ahaan doontaa laakiin guddigan waa guddi muhiima oo siyaasadda arrimaha dibadda ayn ku lug leh islamarkaana waxaan walaac ka qabnaa ammaanka qaranka sida hadalku uu dhigay sidaa darteed ilhaan uma qalanta ayuu yidhi Kevin McCarthy inay guddigan kasii mid ahaato. ilhaan weli waa xildhibaanad ka tirsan aqalka Congress-ka guddigana xubin muhiima ayay ka ahayd maxay ka tiri ayada arrintaas? ilhaan cumar waxaa maanta inta aan codka loo qaadin xubnaha doonayay in xilka qaadis guddigan laga saaro ay ka hadleen aqalka Congress-ka iyaduna waa ay hadashay hadal aan qiiro leh ay ka jeedisay aqalka hoose maanta inta aan codka loo qaadin waxayna tiri anigu waxaan ahay qof Afrikaan ah muslim ah oo madow ah oo xijaaban haddana soo galooti ah waana ku qanacsanahay inaan qof muwaadin ah oo Mareykan ahay waxayna tiri arrinta lagu bartilmaameedsanayo waa arrimahaasi waxayna ku tilmaantay xitaa shir jaraa'id oo qabatay markii xilka laga qaaday kadib arrintan argoosi laakiin racfaan ayay ka qaadan kartaa oo guddiga anshaxa ee Congress-ka ayay racfaan u gudbin kartaa marka ilhaanna weli ma aysan sheegin inay racfaan ka qaadan doonto iyo in kale xilka qaadistan guddiga wasaaradda arrimaha dibadda lagu sameeyay waxayna tiri waan sii wadi doonaa inaan u hadlo dadka aan codka lahayn ilaa iyo dhibaatada caalamka ay ka istaagto isla markaana caalamku uu noqdo mid wanaagsan gabi ahaantiisa. ma la isdhihi karaa xisbiga Republican-ku wuxuu sii laba jibaarayaa inuu target gareysto dadka muslimiinta madowga soo galootiga ah ee ayagu markaasi dawladda ku soo biirayo waliba Soomaalida oo ay u arkaan inay yihiin dad si xawliya ku galaya siyaasadda waddanka maadaama xilligii dalka ay soo galeen dhawaan ay ahayd. sida muuqato khudbadihii maanta Congress-ka intaan codka loo qaadin ilhaan laga jeediyay waxaa ka mid ahaa xubnihii jeediyey Alexandria Ocasio-Cortez oo laga soo doorto New York oo iyadu ah dadkan Latiniga amaba Hispaniga ah waxay tiri waxaa la bartilmaameedsanayaa haweenka midabka ah sida Hispaniga iyo amaba dadka madowga ama muslimiinta ee ku jira Congress-ka ayaa arrintan lagu bartilmaameedsanaya ayay halkaasi ka tiri. ilhaan cumar waxay tiri iyana sida ahaanteedu la yaab ilama ahan in arrintan lagu bartilmaameedsado muddo ayay soo jiitamaysay wax igu cusubna ma ahan ayay tiri oo waxa ay ogeyd in arrintan ay dhici doonto maadaama horey xisbiga Republican-ku ay u hanjabaado kala duwan ay u jeediyeen isla markaana ay sheegeen inay guddigaasi ka saari doonaan. aad ayaad u mahadsan tahay kaasina waxa uu ahaa Cilmi Waare oo nooga warramay xilka qaadistii maanta lagu sameeyay xildhibaanad ilhaan cumar oo iyadu laga qaaday xubinnimadeedii guddiga arrimaha dibadda ee aqalka Congress-ka aad ayaad u mahadsan tahay Cilmi. waa mahadsantahay.